ha u murugoon goortii ay adduunyadu ciriiri kaaga noqoto meel kasta ama dhan kasta maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala naxariistiisa ayuu kaaga waasicinayaa dhan kale ama meel kale ha welwelin laga yaabaa inay soo daahdo shaqada laga yaabaa inuu soo daaho guurka laga yaabaa inuu soo daaho caafimaadka laakiin haddii loo samraa waa qasab inay imaanayaan dhammaan riyooyinkeenna inta uu la eg yahay samirkaaga ayay hadhowna farxaddaadu la ekaanaysaa haddaba allah weyddiiso oo ka dalba wax walbood u baahan tahay maxaa yeelay allah waa mid awooda inuu ku siiyo dhammaan waxyaabaha aad u baahan tahay haddii aadan helin waxaad dalbatayna ogow inaysan waxaasi khayrba kuu ahayn markii hore waayo allah isaga ayaa garanaya dhammaan waxyaabaha inoo wanaagsan annaga yaysan ku daalin duruufaha adag ay kolba noloshu kaa hor keenayso qalbigaaguna yuusan ciriiri la dareemin daraadda adduunyo aad weysay ama kaa soo daahday hana welwelin maxaa yeelay culayskuu ku soo marayaa oo keliya wuuna kaa sii tegayaa wuxuuna kuugu imaanayaa si aad casharo uga barato oo aad u noqoto mid adag noloshana ka yeesha khibrado xeel dheer wakhtiyada xanuunkana waxaa laga maarmaana inay ku xigaan wakhtiyo farxad ah mana jiro bani'aadam bilaa mushkilad ah mana helaysid nolol ciqaab la'aan ah dhammaan noloshu waxaa ku hareeraysan xanuunno qarsoon iyo murugooyin aamusan balse sidaa ma sii ahaanayso oo murugada waxaa xigaya farxad habeenkana dharaar iftiin badan xanuunkana caafimaad duruufahana waxaa ka dambaynaya dharaaro aad u qurux badan inshaa allah ee walaalahayow noloshiina ha ku qiimaynina sida ay maanta tahay muhiimaddu ma ahan midda ee waxaa muhiim ah dadaal iyo juhdi kadib sida ay noqon doonto nolosha hadduu allah yidhaahdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh